يا دلay she's the cousin though idinka dhan anaa idin waso haddaa mareenka hor imaatin anaa idin waso macaan nabigina anaa wasataa qof kasta oo nabiga wax ka sheega haddii loo awooday ifkana unuunka in la jaro mudan yahay nabiga allah naga raali noqoe kan nabiga caaya xukunkiisu waa dil weeyaan kanoo kale qof nabiga caayaya ama diinta ama ilaahay abarta caaya ku janna taga ma janno wax ka wanaagsan baa jira janno wax ka wanaagsan miyaa jira war janno wax ka wanaagsan miyaa jira janno wax ka wanaagsan miyaa jira maanta haddii la war jannada gal soo chance soo maray maaha war kan kii wallaahi bilaahi talaahi dila jannu galaya hadda aan sheegaya qofkaas kii dila jannu galaya anaa aan sheegay qofka hadda arkaysaan kii dila wallaahi jannu galaya ma janno wax ka wanaagsan baa jira waxaani wallaahi dhiiga ayuu kale oo bila diinta laga maraaniga diinta waa ku dilaa waa ku dileena waa ku kadaa waa ku inta waxaas dhan been aad isu sheegteen waay been aad isu sheegteen waay tiina kale ilmo maxamed intiina kale anaa idin waso nabiga calayhi salaatu wasalaam ninkaan aflagaadaynayo walaalayaal meel allah la meeshaad ku aragtaa ninka horta la qaarjiyo in la qaarjiyo waxay soo guuriyaan waxyaalaha kufriga ah waxaa ka mid ah qofku hadduu yidhaahdo marada nebiga fii xayaatii hadduu qofku yidhaahdo marada nebigu qabo waa wasakh asagoo ola jeeda inay nuqsaan ka wado ku liidahaya kufri weyn diintu kaga baxay waa la dilay ahlucilmigu waxay soo guuriyaan qofka yidhaahda nebigu kaana aswad midabkiisu wuxuu ahaa madow yuqtal abu muxamed ibnu abi zayd alkhayrawaani ayaa iftoon jiray qofkii nebiga sala allahu calayhi wasalam ku yidhaahda waa madow yahay waa la dilaya waayo nebi maxamed madoobay nuqsaan ayuuna ka wada oo ku tacnin ayuu ka wada nuuc kasta oo naqsigaas ah aswaajiisa iyo xaasaskiisa qofka ku tacniya nebiga calayhi salaatu wasalaam cirdigiisa iyo sharaftiisa qofka ku tacniya garkiisa ilaahay siiyo haybaddaa qofka ku tacniya socodka nebigu socon jiray qofka ku tacniya nooc kastoo ka mida dharkuu qaba qofka ku tacniya kaafir billaahi alcadiim wey waana yuqtal waa la dilayaa waajib weeye in la dila inuu noolaado maaha rabulcizaan ku dhaartay dhaqamadii reer bani israa'iil ayaynu yeelannay ta'maruuna bilmacruufi wa tansawna anfusahum haddii waddan reer galbeeda nin ka soo jeeda rasuulku aflagaadeeyo waynu qaylinaynaa dhallinyarada social media wax qorqorta dhammaantood waa ay soo qaadanayaan waxay ku leeyihin nin reer iswiidhisha nin faransiisa ayaa rasuulka aflagaadeeyey waa in lagu mudaharaadaa cunaqabatayn in la saraa laakiin midka soomaaliga ma aqaana waxay uga gabanayaan ma qabiil ayay ku difaacayaan ma reer bay ku difaacayaan wax alaaliya waxay ku difaacayaan ma naqaano kaasi waaba gaal cadaysta laakiin midkan dhaqanka kula sheeganaya diinta kula sheeganaya soomaalinimada kula sheeganaya kula afkaa inuu afkaagii soomaaliga rasuulka suubanaa sala allahu calayhi wasalam ku aflagaadeeyo meel ka dhacaya annaga nugu tahay cid allaaliya ciddi taqaana ninkaas meesha uu ku sugan yahay waxaa loo baahan yahay ciqaabta uu leeyahay in la marsiiyo rasuulkeenna ha naga raalli ahaado rasuulkeenna suubanaa sala allahu calayhi wasalam naga raalli ahow inagu raalli kama nihin in inaga dhexdayada nin soomaaliya nala dhaqana nala reera nala qabiila nala diina uu adiga ku aflagaadeeyo rasuulkeenna naga raalli ahow idinkana sii faafiya insha allahu tacaala qabiil waxba kaasoo kale ha ku difaacin kaas kula diin maahan kulama dhalan soomaalinimo kulama sheegan karo walaalayaal sii faafiya rasuulka difaaciisa waa waajib muqadis oo ina saaran sala allahu calayhi wasalam si ahaatee haddi asaga horta qalad waa galay bini'aadan waay bini'aadan qof kasta qalad waa galaa aan hadda asagana ma difaacoy tii adag ka hadlooy maxaa waay qofku waqtii sarqaansan jabigiis joogin ahaa maqli jiray ulumadina dhihi jirtay waxay asaga sameeyo dharkiisa taa haddii tuurto qalad ma qabo so hadda asagoo ilaahay kiis u gafi hadda haddii anaga buubuunino meel kastoo anaga dembigiis ila qaybsadno anagana xisaabtii asaga qaladkii asaga galima ili jirno taasna iga jaahil bixiyabe maanta okay hebaa qorta soo dhawaaw soo dhaweynaynaa ninkaas waxaa dhahday waa ninkeyga weeyaan waa yahay waxaa dhahday waa cabsanaayaa dhahday okay darooqo kasta cabsanaado ha cabsanaado laakiin wuu ku deji hoos uu ku deji maho waa nu tuuri anaga dhan ani walaalaha asaga isla dhashteen hooyo iyo aabe isla yihiin waa fuulni gabdhaha meeshan fuulaan kulli anaga dhan mana aqaanin anaga dhan waanu aflagaadaynay waalidaa aflagaadaynay asaga okay dhib ma laha
laakiin wuu awooday inuu hoos kuu dejiyo iyo markii koowaadna asagii soo saaray sax wuu kaa doortay dadkii meesha ee saarnaayeen aduu kaa xushtay meesha oo kor buu ku soo saaray sax ya qofkaas soo saardhanaya okay waa nin caqligii waa qabanay beri ninka caqligiisii wuu joogay maho ma ogidiis dambi baka gali kare maya beri hadduusan caqligiisii oo jiri lahayn oo ka daboolmi lahaa ma ku soo qaban lahayn adig يعني ما أبودي لهن إنه أديك السوق أو كاحر إيه إما قرن هذا وقت السوق بدي بدك ده هذا كسور ده قال يعني ماشي أصلا إما قرن يعني بقف يعني إيه قف كي قال أوكي كربك صوصاتي صح هذا أنا هو كود جهاز وكود جماعة ها أنا وايد توري ها يعني ما قل دمن أسجع ما قل دمن إنه مرتي بدل ما أديك توري لها تلفون كم تورين لكن أبو كتوري صح أوكي ولا شيء سفيان إيده جيسو qofka sakraanka ah oo la leeyahay maxaa la yiraahdaa oo loo cudur daarayo waa qofka oo miirkiisi iyo caqligiisi daboolma weeyaan oo completely waxba maaragtay kala garanaynin qofkaas waxa la leeyahay cudur maaragtay loo raadinaya laakiin qof oo miirkiisi joogo oo TikTok live ku jiro oo meeshan ka hadlaayo oo dadkiina soo qabanayo oo dadkiina maaragtay soo xushanayo oo kor soo saaranayo haddana hoos u dejinayo waa qof maaragtay caqligiisi joogo weeyaan cudurdaas kaas maaragtay ma laha waxa oo sameeyay ninkaagi wax weey waa gaalnimo cad weeyaan oo wali gaalnimadaasi ee ka ratibmaysa ma taqaanaa xukum sharci oo xad baa koraayo su'aalaku weydiinaya hadani su'aal adigu weydiinaya adag weydiinaya qof okay walaashay safiican ii dhageyso qofka sakraanka ah oo la leeyahay maxaa la yiraahdaa oo loo cudur daarayo waa qofka oo miirkiisi iyo caqligiisi daboolma weeyaan oo completely waxba maaragtay kala garanaynin qofkaas waxa la leeyahay cudur maaragtay loo raadinaya laakiin qof oo miirkiisi joogo oo TikTok live ku jiro oo meeshan ka hadlaayo oo dadkiina soo qabanayo oo dadkiina maaragtay soo xushanayo oo kor soo saaranayo haddana hoos u dejinayo waa qof maaragtay caqligiisi joogo weeyaan cudurdaas kaas maaragtay ma laha waxa oo sameeyay ninkaagi wax weey waa gaalnimo cad weeyaan oo wali gaalnimadaasi ee ka ratibmaysa ma taqaanaa xukum sharci oo xad baa koraayo su'aalaku weydiinaya hadani su'aal adigu weydiinaya adag weydiinaya qof waxa weeyaan hadduu imaado gabar caruur ma dhashay okay gabdho ma ku jiraan good gabadhaada imse jir waay 4 jir qof nin weyn ah okay nin weyn waay oo wuxuu sameeyay ma fahamtay wuxuu sameeyay gabadhaadii ayuu kufsaday safiican ii dhageyso gabadhaadii uu kufsaday kadib wuxuu ku yiri war ani waa saqraansanaa ma ka yeelaysaa maya habsiga dhiga laana wuxuu sameeyay gaf ayuu sameeyay kasbu u sameeyay okay kama yeeleen ma taqaana waa saqraansanaa iyo waa cabsanaa iyo waxaan leenahay sheekadaada iska heeso gabar yar ayaa kufsatay marka ninkaani wuxuu sameeyey wuxuu ku gafay suubanaheena sallallahu alayhi wasallam ayuu ku gafay ilaahigii abuurtay ayuu ku gafay diinteeni ayuu ku gafay tii ilaahay tabaaraka wa tacaala iyo diinta maaragtay uu ka tooba keeni karaa laakiin tii suubanaha sallallahu alayhi wasallam waa xad ayaa koraayo xadkaasna kama dhacaayo way fahantaa malan hadda warku waa cadi ama هذا بلا صعب ninkaasi hadda